kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba khiyaartayna daawanaysa ay ku soo dhawaada warkii dunida oo si toos ah idinkaga imaanaya telefishinka RTN studio-ha dhexe aynu ku leenahay magaalada Nairobi waxaana jeerkan idin warrami doona anigoo Cabdulcasiis Barrowa qodobada wararka aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ayaa si weyn ugu falcelinaysa qariirad u muuqata qaaradda Afrika oo lagu faafiyay bogga wasaaradda amuraha dibadda Ethiopia oo ay ka dhex muuqanayso Soomaaliya oo lagu daray Ethiopia iyo Somaliland oo la muujiyay sidii jamhuuriyad madax bannaan qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ayaa si weyn uga hor yimi hadal ka soo baxay wasaaradda amuraha gudaha iyo federaalka dalka taasi oo looga hadlayay habraaca doorashooyinka maamul goboleedyada iyo sidoo kale dan dawladda dhexe ee Soomaaliya dawladda Ciraaqna waxa ay sheegtay inay u diyaarsan tahay inay door dhaxdhaxaadina ka qaadato ismariwaaga siyaasadeed iyo khilaafaadka dhinaca diblomaasiyadda ee soo kala dhaxgalay jamhuuriyadaha Iiraan iyo sidoo kale Mareykanka qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan saaxiibayaal warka dunida ee telefishinka RTN balse aan ku horeeyo dhinaca Ethiopia wasaaradda amuraha dibadda ee dalka Ethiopia ayaa bogga ay ku leedahay internetka waxay ku faafisay qariirada qaaradda Afrika oo ka dhex muuqanaysa Soomaaliya oo lagu daray Ethiopia iyo Somaliland oo loo ekeysiyay jamhuuriyad madax bannaan arrintan ayaa waxaa caraweyn ka qaaday Soomaalida oo si weyn uga hadal haya baraha arrimaha bulshada laakiin markii hadal haynta qariiradan ay si weyn baraha bulshada u qabsatay wasaaradda amuraha dibadda Ethiopia ayaa boggeeda ka saartay ugu dambeyn waxaa sidoo kale ka muuqanayay qariiradan in sidoo kale Suudaanta Koonfureed aysan ahayn jamhuuriyad madax bannaan oo ku taala qaaradda iyadoo lagu daray dalweynaha Suudaan lama oga in qariiradan horey loo faafiyay intii aanay Suudaanta Koonfureed ka go'in Suudaanta kale laakiin waxaa si weyn bulshada Soomaaliyeed ay isku weydiinayaan sababaha wasaaradda amuraha dibadda Ethiopia xilligan ay u baahisay sawirkaasi dawladaha Soomaaliya Ethiopia iyo sidoo kale Eritrea ayaa horey u sameystay iskaashi ballaaran oo ay doonayeen in isdhaxgal bulsho loogu abuuro hase yeeshee dawladda Soomaaliya Ethiopia ayaan midkoodna ka hadlin sawirkan sida weyn u dhex wareegaya baraha arrimaha bulshada ee lagu faafiyay bogga dhinaca internetka ay ku leedahay wasaaradda amuraha dibadda Ethiopia dhinaca kale qaar ka mid ah maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa ka hor yimi war ka soo baxay wasaaradda amuraha gudaha iyo federaalka ee dalka Soomaaliya waxaana arrintaasi ay ka dambeysay kadib markii wasaaradda amuraha gudaha iyo federaalku ay baahisay habraaca doorashooyinka maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ee dalka qaar ka mid ah maamul goboleedyada ayaa sheegay arrintan inaysan ahayn mid cuntami kara magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe ahna caasimadda maamulka Hirshabeelle ayaa waxaa kulan ku qabtay mas'uuliyiinta maamulkaasi waxaana ay ku tilmaameen in hadalka ka soo baxay wasaaradda amuraha gudaha iyo federaalka Soomaaliya aanay ahayn mid imika ay qaadan karaan warkan waxaa Jowhar inooga soo diray Xamdi Dool Abuukar wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa soo saartay habraaca doorashada dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo tan dawlad goboleedyada dalka ka jira waxaana habraacaasi doorasho ee ay wasaaradda arrimaha gudaha warsaxaafadeedka ku soo saartay ka soo horjeestay maamulka Hirshabeelle oo ka mid ah maamulada ka jira dalka Soomaaliya waxaana arrinkaasi ka jawaab celiyay oo warsaxaafadeed soo saaray wasaaradda dastuurka xukuumadda Hirshabeelle waxaana warsaxaafadeedka warbaahinta u akhriyay afhayeenka madaxtooyada xukuumadda Hirshabeelle Daawud Xaaji Ciro bismillaahir rahmaanir rahiim amaadsantiin marka ugu horeysa baada saxaafadda waxaan idin aqrinayaa warsaxaafadeed ka soo baxay dawlad goboleedka Hirshabeelle gaar ahaan wasaaradda dastuurka iyo arrimaha federaalka hase yeeshee kor dawlad goboleedka Hirshabeelle iyadoo dhowraysa dastuurka dawlad goboleedka Hirshabeelle dastuurka qabyo qoraalka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo shuruucda kale ee dalka u degsan waxay si cad uga hor imaanaysaa qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dawladda federaalka ah qoraalkaas oo lagu sheegay inuu yahay habraaca doorashooyinka dawlad goboleedyada oo ah mid ka hor imaanaya dastuurka dawlad goboleedyada
kan qabyo qoraalka dowladda federaalka ah iyo shuruucda kale ee dalka u degsan. haddaba wadatashi dheer oo ay wada qaateen madaxda dowlad goboleedka Hirshabelle iyo wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka Hirshabelle waxaa ka soo baxay war-saxaafadeedkan waan idin dulmaraya idin aqrinaya. jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya dowlad goboleedka Hirshabelle wasaaradda dastuurka iyo arrimaha federaalka war-saxaafadeed maanta oo ay taariikhdu tahay 26 bisha shanaad 2019 war-saxaafadeed kadib markaan aragnay warqad ka soo baxday xafiiska wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ee ku taariikhaysan 25 May 2019 taasoo lagu shaaciyay habraaca doorashooyinka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka Hirshabelle waxay go'aansatay inay cadeyso mowqifka dowlad goboleedka Hirshabelle markay la tashatay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle mudane Maxamed Cabdi Waare. kadib markaan aragnay dastuurka kumeel gaarka ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya qodobkiisa 120aad ee qeexaya hay'adaha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah. 2 markaan aragnay qodobka 25aad firqadiisa 4aad dastuurka dowlad goboleedka Hirshabelle. 3 markaan aragnay qodobka 20aad firqooyinkiisa 1 iyo 2 ee dastuurka dowlad goboleedka Hirshabelle. markaan aragnay qodobka 61aad firqadiisa 4aad xarafka D kaas oo qeexaya sharciga guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka dowlad goboleedka Hirshabelle. haddaba wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka Hirshabelle markay aragtay qodobada kor ku xusan waxay walaac fara badan ka muujinaysaa warqadda ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha ee ka soo baxday taariikhda kor ku xusan inay baalmarsan tahay hanaanka federaalka dowlad wanaagga daadejinta nidaamka dimuqraadiyadda dalka waxayna sidoo kale kor imaanaysaa dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dastuurka dowlad goboleedka Hirshabelle iyo dhammaan shuruucda kale ee u degsan u yaal dalka. dhammaad wabillahi tawfiiq. xamdidool RTN Jowhar. dhinaca kale wasaaradda amuraha gudaha ee maamulkaasi Jubbaland ee ku yaala koonfurta Soomaaliya ayaa iyana war ay soo saareen waxay uga hor yimaadeen warkii ka soo baxay wasaaradda amuraha gudaha ee Soomaaliya ee ku saabsanaa habraaca doorashooyinka ee dalka. war-saxaafadeedka ay soo saartay Jubbaland ayaa waxaa si weyn ay ganafka ugu dhufatay inay raacdo hadalkii ka soo baxay wasaaradda amuraha gudaha dalka kaasi oo qeexaya habraaca doorashooyinka dowlad goboleedyada iyo sidoo kale dowladda dhexe ee Soomaaliya. war-saxaafadeedka ay soo saartay Jubbaland waxaa lagu sheegay in maamulkaasi uu isku diyaarinayo inuu qabto doorashooyin xor iyo xalaal ah isagoo raacaya baa lagu yiri dastuurka kumeel gaarka ee Jubbaland u yaala qodobadiisa 140aad 120aad iyo 120aad oo xaq u siinaya dowlad goboleedkaasi inay qabato doorashooyin inta la iska waafajinayo dastuurka federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa lagu sheegay war-saxaafadeedka ay soo saartay wasaaradda amuraha gudaha ee maamulka Jubbaland. arrimahan dhan waxay imaanayaan xilli qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka qaarkood oo ay ka mid tahay Jubbaland ay isku diyaarinayso bisha Agoosto ayna soo aadan doorashooyinka maamulkaasi ee madaxtinimada waxaana dad fara badan indhaha ku hayaan tallaabooyinka xigi doona iyadoo sidoo kale arrintan ay si weyn uga soo horjeesatay amaba uga hor yimid maamulka Galmudug ee fadhigiisu yahay magaalada Dhuusamareeb iyadoo dhinaca cadaadana ay si weyn arrintaasi u soo dhaweeyeen. wararka naga soo gaaraya dhinaca Puntland ayaa waxay sheegayaan in madaxweynaha maamulkaasi Saciid Cabdullaahi Dani uu magacaabay taliyaha qaybta ee ciidamada maamulkaasi Puntland u qaabilsan Gaalkacyo iyadoo arrintan ay ka dambeysay kadib markii maalmihii la soo dhaafay uu ku sugnaa magaaladaasi Gaalkacyo ee xarunta u ah gobolka Mudug. war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxtooyada ee maamulka Puntland ayaa lagu sheegay in taliyaha qaybta booliiska ee gobolkaasi Mudug la magacaabay waxaana loo magacaabay sida lagu sheegay wareegtada gaashaanla sare Jaamac Maxamed Axmed oo loo magacaabay taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Mudug.
magacaabista kadib ayaa madaxweynaha maamulkaasi Siciid Cabdulaahi Dani waxa uu boqolay dhinacaasi ee wadanka Shiinaha isagoo sheegay kulan uu ku qabtay magaaladaasi oo warfidiyaanka kula hadlay inuu doonayo inuu kulamo la soo qaato mid ka mid ah hogaamiyaasha gobolka dalka Shiinaha gobol ku yaala isagoo sheegay in looga gol leeyahay sidii iskaashi ballaaran oo Puntland iyo sidoo kale gobolkaasi la xiriira ay u samaysan lahaayeen. Siciid Cabdulaahi Dani ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in arrimaha ugu weyn uu kala hadli doono hogaamiyaasha gobolka uu booqanayo ee Shiinaha ay tahay sidii maalgashi dhaqaale ugu sameyn lahaayeen maamulka Puntland oo ka mid ah maamulada ugu faca weyn taariikhda federaalka ee Soomaaliya. waxaan maanta maalin axada oo 26 bisha May aan safar shaqo ugu baxaya dalka China aniga iyo wafdi wasiirro ka kooban oo ila socda. safarkaas waa safar shaqo oo ku saabsan sidii gobol ka mid ah gobolada China oo wax wada qabsi noo dhexmari lahaa dhinaca horumarinta ganacsiga iyo kala faa'iideysiga khibradaha dhinaca dhismaha iyo warshadaha iyo xoojinta xiriirka ganacsi ee naga dhaxeeya. waxaan rajaynaynaa muddadaas aan joogno inaan aragtiyo fiican kala soo noqon doono iyagana aan u sharxi doono fursadaha ganacsi iyo maalgashi ee Puntland ay leedahay. waxaan aad ugu faraxsanahay dalalka adduunka ee danaynaya Soomaaliya inay maalgeliyaan si dhaqaalahooda u kabco in ay yimaadaan iyagoo wadooyinka sharciga ah iyo nidaamka dawliga ah u soo maraya. dawladda Puntland waxay ballan qaadaysaa in ay intii karaankeeda ah dadka jecel inay maal gashtaan si ay ummadda reer Puntland ugu faa'iideeyaan iyaguna ugu faa'iideystaan inaan wax cad oo iyaguna isku haleyn karaan annaguna aan ku naaloon karno isku haleyn karno ay ka soo baxaan. waxaa sidoo kale jecelnahay inaan ugu yeerno iyaga iyo bandamadii hore aan u tagnaba shirka maalgashiga ee Puntland ka dhacayo oo aan rabno khayraadka dihin ee dalkan leeyahay ee fudud khaasatan dhinaca kalluumaysiga iyo beeyada iyo waxyaabaha la xiriira wax soo saarka in aan noqoto meelaha u muhiimsan ee la maalgelinayo. sidoo kale badeecad badan oo aad u sahlan oo samaynteedu halka ku sahlan tahay oo ganacsatada reer Puntland dib badan ka qaabsada inay dibadda ka keenaan baa jira. waxyaabaha yaryarka aana sidii gudaha loogu farsamayn lahaa ayaan ujeedadeenu tahay oo aqoonta iyo maaragtay teknolojiyada loo soo transfer gareyn lahaa ama halka loo keen lahaa. madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan inta halka joogta iyo wafdiga raacay wasiirada kale oo na sii dhaweynaya waan uga mahad celinayaa kulankan aan halka isugu nimid. runtii waa kulan aad u wanaagsan iyo intii soo qaban qaabisay oo ugu horeysay safaaradda China iyo wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya intaba. waxaan rajaynayaa kulankan inuu noqdo kulan miro dhal ah. aad baad u mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. watahay daawadayaal warar kale ayaa inoo soo socda oo ay ka mid yihiin deeq la gaarsiiyey dad barakacayaal oo ku sugan xerada loo yaqaan Qalooje oo ku taala dhulka Soomaalida. hase yeeshee markan waxaynu aadaynaa wararka kale oo aan idiin hayno. waxaa lagu guda jiraa xilli roobaadkii guga waxaana qaar ka mid ah hay'adaha samafalku ay ka dayrinayaan xaaladda nolosha dad fara badan oo Soomaaliya iyadoo la sheegay in deegaanada roobabkii la filayay sanadihii ugu dambeeyaba iminka aanay si wanaagsan uga deyn. meelaha qaar ayaa laga soo warinayaa inay ka jirto macluul waxaana loo baahan yahay in laga hortago sida ay sheegeen hay'adaha samafalka iyagoo codsanaya in la siiyo lacag fara badan oo deeqa oo lagu gargaarayo. hay-adaha samafalka ee ka howlgala Soomaaliya ayaa toddobaadkii la soo dhaafay ku dhawaaqay qorshaha gurmadka abaaraha waxayna hoosta ka xariiqeen baahida loo qabo dhaqaalaha aan soo daahin oo si looga baaqsado in xaalad bini'aadanimo ay ka sii darto. qorshaha waxa uu dalbaday adduun lacageed oo gaaraya 710 milyan oo dollarka Mareykanka si caawinaad nafadbaadina loola gaaro baa lagu yiri 4.5 milyan oo Soomaali ah oo ay abaartu saameyn baan ku yeelatay muddadii u dhaxaysa bishii Maaj iyo December ee sanadkan aynu ku guda jirnay iyo sanadkii hore.
xilli roobaadkii guga ayaa guud ahaanba wadanka uga dayn si wanaagsan arrintan oo ka dhigan xilli roobaadkii labaad ee aan si wanaagsan uga dayn guud ahaanba Soomaaliya iyadoo ay jirto marxalad ay ka soo kabanaysa abaarihii sanadkii 2017-2016 ka dhacay marka laga reebo gugii 2018 xilli roobaad walba waxa uu ahaa mid celcelis ahaan ka hooseeyay intii la heli jiray ilaa sanadkii 2015 roobyaradaasi oo sababtay in dadku ay ka soo kaban waayaan dhibaatooyinkii gaaray roobkii guga ee sanadkii 2019 waxa uu noqday kii saddexaad ee ugu leegtay taariikhda Soomaaliya ilaa iyo horaantii 80-maadkii arrintan ayaa waxa ay saameyn wanaagsan ku yeelatay ama saameyn ba'an ay ku yeelatay baalayiri dalagga beeraha iyo taranka xoolaha oo aad u sii yaraanayay tirada dadka ku sugan xaaladaha degdega ee cunayarida waxa laga cabsi qabaa inay gaaraan 2.2 milyan bisha Luulyo tiradan waxay boqolkiiba 40 ka sareysaa halkii ay joogtay bishii Janaayo ee sanadkan nafaqa darrada iyo cudurrada ka dhasha abaaraha iyo barakaca ayaa cirka isku sii shareeraya xaaladda abaarta ee Soomaaliya waa mid ka sii daraysa waxayna u muuqataa inay ka soo hormartay waqtiyadii la arki jiray marka dib loo eego 10kii sano ee la soo dhaafay Soomaaliya waxay ku sugan tahay xaalad adag hadii loo helo dhaqaale ku filan waxa dib u howlgelinayaa farsamooyinkii looga hortagi lahaa macluushii 2017 oo kale ayuu yiri George Gonwe oo ah kusimaha xiriiriyaha arrimaha bini'aadanimada ee Soomaaliya isagoo sii hadlaya waxa uu sheegay inagoo dawladda Soomaaliya kala shaqeynayna sidii loo dhisi lahaa adeegyadaasi dadka lagula tacaalayo waxyaabaha sababa mashaqooyinka soo laabtay ayaan haddana waxa loo baahan yahay cid walba oo ay ku jiraan deeq bixiyaasha ganacsatada Soomaalida gudaha ku nool iyo qurba joogta inay ka qayb qaataan dadaalada gargaarka ayuu hadalkiisa sii raaciyay saameynta abaaraha ayaa waxay qatar gelinayaan guulihii laga gaaray sanadkii 2018 in sare loo qaado howlaha gargaarka ayaa loo baahan yahay si loo yareeyo saameynta abaaraha waxana kale oo aan laga maarmin in gargaarka bini'aadanimada lagu kabo mashaariicda horumarinta iyadoo laga shaqeynayo hanaanka soo kabashada nugeylka ee dawladda Soomaaliya hogaamiso si Soomaalida awood ugu yeelato inay duruufahan oo kale iska xajiso mustaqbalka dhaqaale yarida ayaa xadidaysa awoodaha hay'adaha samafalka ee ka jawaabi lahaa baahiyaha gaarka ayaa lagu sheegay warkan ay sii daayeen hay'adaha samafalka howlaha gargaarka oo muhiim u ah oo ay ka mid yihiin qaybaha biyaha caafimaadka nafaqada iyo caawinaadda dhanka cuntada ee ka socota dhulka ay abaaraha ku dhufteen qaarkiis ayaa hoos u sii dhacaya ayaa lagu daray warkan magaalooyinkana waxaa soo galaya ayaa lagu sheegay barakacayaal cusub qorshaha ka falcelinta baahiyaha bani'aadanimada ayaa sidoo kale saameyn yeelanaysa waxaana arrintan ku soo aadaysa xilli meelo ka mid ah dalka Soomaaliya iminka ay ka da'een roobabkii guga walow hay'aduhu ay wali muujinayaan dhibaatooyinkaasi ay sheegayaan dhinaca dhulka Soomaalida Ethiopia markaanu eegnana dadka ku sugan xeradaha barakacayaasha loo yaqaan qalooji ayaa waxa la gaarsiiyay kaalmooyin bini'aadanimo oo raashiina iyadoo loogu talagalay in lagu caawiyo dadkaasi dadkan oo qaarkood ka barakacay colaadihii u dhaxeeyay Soomaalida iyo Oromada ayaa gargaarkan la gaarsiiyay waxa wariyaha RTN sheegaya in aanay noqon kareynin mid ka fikirta noloshooda isla markaana loo baahan yahay in kaalmooyin kale oo degdeg oo dheeraad ay helaan Axmed Najaashi ayaa warkan ka soo diray magaalada Jigjiga 7432 kintaal ku kooban bariis iyo timir isla markaasna loogu talagalay dadka ku dhaqan xiriyaha qoloji ayaa deeq ahaan ay u gaarsiin xukuumadda iyo ganacsatada deegaanka inkastoo aan wali la soo shubin lacagihii loogu tabarucay waxaana socda dadaal fara badan oo lagu doonayo in deeq lagu gaarsiiyo qoysaskani deeqdan ayaa ahayd mid si weyn ay ugu bahnaayeen dadka ku dhaqan xiriyahan maadaama ay soo wajahday cunno yari مسؤولين هركعي وزير كمدحتوية الديجان كصومالي حسن حسين وكوليو وزير كوجين كحفيزك كهرتجي يدير جروجا مسؤولين كدولة الديجان كصومالي محمد نور عيسى أي جاري حريها قلوتشي سي أي قوس كني أي جارسيان قيبك كم إذا هدقيه لوجي وهاي بلوي بيش بركة سنة رمضان دولة أي سمايسي يا أقوياء كي جناح ستة أو إسكاشنا يا دق أورولين بيسميين لا أورولين يا بالشدة قلتشي
bisha Ramadaan ee barakaysan munaasabadeeda. Deeqda la ururiyay wajigeedii koobaad baa hadda idin soo gaadhay. wixii dambana uu idin soo gaadhi doona haddii alla yidhaahdo. raashimo kala duwan baad arkaysaan oo halkan yaallay. raashimahaas waxaan rajaynaynaa inuu qoys walba gaadho haddii alla yidhaahdo oo uu guri walba oo qollaji ka mida uu galo bishan Ramadaan. sidanna inaad hadda kadib u noolaataan qorshahanagu ma ahaanin. qorshuhu waxa weeyaan in dhammaan dadkan qollaji ku nool dib u dejin loo sameeyo oo nolosha nolol ka duwan ay ku noolaadaan. middaana daraasaadkeedii iyo howlgalkeedii waa lagu jiraa. meelo kala duwan baa sahan loo tagay. hawlahaana way socdaan waanad ka tegi doontaan halkan haddii alla yidhaahdo. dib u dejinna waa la idiin samayn doonaa rasmi oo dhammaystiran haddii alla yidhaahdo. dadka la gaarsiiyay deeqdan oo ahay dad ay iyagu si weyn u qabay xaalad cunayari ayaa ka mahad celiyay deeqda la soo gaarsiiyay. waxayna sheegeen inay aad ugu baahnaayeen. waxayna geesta kale codsadeen in dib u dejin loo sameeyo isla markaasna laga qaybgeliyo mashruuca shaqo abuurka deegaanka. waxaa jira dhibaatada joogta meeshantada annagu waxaan ka hadalla ma leh waayo xogogaal baa loo yahay. waxaan idinka mahadnaqaynaa oo keliya maanta ballanqaadkii uu madaxweynuhu ballan qaaday uu ka soo jawaabay annagoon in badan idinka baranin jawaabta runta kolkaan ka hadlayno ilaa intaa maanta iyo maalintii waynu soo wada jaan qaadaynay. ballanqaadkeennuna ma yarayn, hawsheennuna ma ayna yarayn. wax noo fulay oo noo taabagalayna kolley waa iska yaryahay. quudintu waa caadi laakiin waxba nooma hayso quudiniye. waxa wax noo haya mustaqbal. waxaynu ka wada hadlaynayna waxaa mustaqbalkanaga. waxaan doonaynayna mustaqbal in naloo sameeyahay. waxaan doonaynay inaad dib u dejin naloo sameeyahay. uma annaan baranin in nalagu quudiyo gacan bani aadam oo nu hoorsanno. dad u bartay ma annaan ahayn. dad waxaanu ahayn isagu isku filan wax qabsan. qof aanu hor istaagi karno wallaahi intiinaasoo dhan ee maxay ahayd dawladdeena hor fadhida oonu dhahayna hebelo wax noo qabo oonu ku hagaagayna ma jirto. oromiya hadda laakiin haddaanu u kacno madaxaanaan aqoonin ma jirto. madaxaanaan hor istaagayn ma jirto. xafiisaanna wax ka soo qabsan karin ma jirto. kii aanu u dhalannay waxba kama qabsan karno. ma afgaranayno, isma camal garanayno. waxaa idinkana inay fiican annagana noo fiican. idinkoo dib u dejinta noogu maqan xilliga aad noo helaysaan. bulsho waxaanu nahay deegaanka u dhalatay kamida ganacsi baanu lahayn, dhalinyaraanu lahayn. waan maxay xuquuqda ay dhalinyaradu leedahay sida odayaashii igu horreysay u sheegeen in dhalinyarada deegaankana loogu daro si idinkana culaysku idinka kala fududaado. ganacsiga annagu awood aan idinku nimaadno iyo meelaanu ku hagaagno midna ma garanayne marti baanu nahay. ganacsiga dawlad deegaanku uu leeyahayna in nalagu daro. qollaji waa gobol dhan oo degan. gobolkaa dhan inaad shaqo abuurka noogu dartaan. bal annaga horta shaqo noo sameeyo oo dadkan kala gura oo noo soo jeedsada gobollada bahjadiyada aad ku bixinaysaan baanu ka mid nahay. horta baraka cunana dhihina bahjadiyada sanadka nagu dara oo annaga bahjadkii kamida dawlad deegaanka iyaga kolka kalena barakacii wax noogu qabta. qollaji waa xerada u weyn ay ku xiriirsan yihiin barakacyaasha ka soo barakacay coladaha labada deegaan hadda kuwa dhex martay waa deegaanka Soomaalida iyo deegaanka Oromiya. idoona qollaji ay u qaybsan tahay laba qaybood. qayb ayaa waxa ay degan tahay 4 sano ku dhawaad halka qaybta kale ay degan tahay 3 sano ku dhawaad. 14,000 oo qoys ayaa xeradaana ku dhex nool. deeqdani ayaa waxa ay tahay deeq ay iska soo ururiyeen ganacsatada iyo waliba xukuumadda deegaanka. Axmed Ibrahim Axmed Najaashi RTN qollaji. aad baad u mahadsantahay Axmed Najaashi. waxaan eebba uga rajaynaynaa dadkaasi noloshaasi adag in ay ka baxaan. wararka kale ee gobolka Banaadir naga soo gaaraya hayaynu guda galaynaa. war degdeg oo ka soo baxay gobolka Banaadir ayaa waxaa lagu sheegay in gudoomiye ku-xigeenkii howlaha guud ee gobolkaasi shaqo joojin lagu sameeyay. war-saxaafadeedkan ayaa waxaa soo saaray gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso. waxaana lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi in sababo la xiriira shaqada loo joojiyay gudoomiye ku-xigeenkii howlaha guud ee gobolkaasi. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariiso ayaa shaqo joojin ku sameeyay gudoomiye ku-xigeenkii howlaha guud ee gobolka Banaadir Aadan Sheekh Cali Fiidow
wareegta uu soo saaray gudoomiye Yariso ayaa lagu sheegay in gudoomiye ku-xigeenka shaqada looga joojiyay shaqo joojinta lagu sameeyay ay sabab u tahay amar diido iyo shaqo curyaamin uu ka wada qaybaha howlaha guud iyo waliba nadaafada gobolka ayaa lagu sheegay war-saxaafadeedkani goor dhow uu sii daayay gudoomiyaha gobolka Banaadir. sidoo kale waxaa lagu eedeeyay inuu shaqo joojin ku sameeyay agaasimaha waaxda qorsheynta iyo injineeriyada gobolka isla markaana uu kala tashan aan wax la tashiya la sameyn. sidoo kalena waxaa la sheegay in gudoomiye ku-xigeenka uu amar ku bixiyay in la joojiyo mashruucii lagu dhisay garoonka qoob dooro ee degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. wararka naga soo gaaraya dhulka Soomaalida ee Ethiopia ayaa waxa ay sheegayaan in la qabtay oo jeelka loo taxaabay maamulihii hore ee xabsigii jeel ogaadeen oo horey hay'adaha xuquuqda aadanaha u dooda ay sheegeen in tacadiye ka dhana xuquuqda bini'aadamku ay halkaasi ka dhaceen. warkan oo ay baahiyeen qaar ka mid ah warbaahinta ayaa lagu sheegay in ninkaasi iminka maamulka uu gacanta ku hayo. mas-uuliyiinta ismaamulka Soomaalida ee Ethiopia ayaa u xaqiijiyay laanta afka Soomaaliga ee idaacadda codka Mareykanka in la qabtay nin horey madax uga soo ahaan jiray xabsiga lagu magacaabi jiray jeel ogaadeen oo ay ka dhaceen xadgudubyo ka dhana bini'aadanimada sida ay diiwaan geliyeen hay'adaha xuquuqda aadanuhu. ninkan ayaa lagu magacaabaa Xasan Axmed Ibrahim Xasan Dheere waxaana la sheegay inay xalay qabteen ciidamada ammaanka ee Puntland. mas-uuliyiin u hadlay maamulka Soomaalida ayaa idaacadaasi u sheegay in ninkaasi haatan loo dhaadhiciyay magaalada Jigjiga isla markaana uu ku xiran yahay. oo tahay wararka naga soo gaaraya magaalada Hargeysa ee Somaliland haddii aynu eegno waxaa maalmihii ugu dambeeyaba Somaliland ka soconaya mashruuc shaqo loogu abuurayo dhalinyaro fara badan oo qaarkood aqoon-yahana waxaana Somaliland ay waday dadaalo xoogan oo dhalinyaradaasi shaqo abuur baahsan loogu sameynayay iyadoo qaarkoodna la xareeyo si tababar ay u qaataan. in muddaaba mas-uuliyiinta ayaa dadaal ugu jiray sidii dhalintaasi ay u noqon lahaayeen kuwa wax soo saar ballaaran la yimaada. wariyaha RTN uga soo warrama magaalada Hargeysa Maxamed Ducaale Cabdi ayaa warkan goor dhaweyd ka soo diray magaalada Hargeysa. madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta si rasmi ah u soo xidhay wajigii koobaad ee barnaamijka shaqo qaran kaas oo muddo 3 bilood ka socday deegaanka Dararweyne ee dhinaca waqooyi bari kaga beegan caasimadda Hargeysa. munaasabadda uu madaxweynuhu ku soo xidhayay wajigan koobaad ee barnaamijka shaqo qaran ayaa waxa ka soo qayb galay xubno ka mid ah golaha wasiirada, taliyayaasha ciidamada kala duwan, hay'adaha madaxa bannaan iyo hoggaanka barnaamijka shaqo qaran, siyaasiyiin, cuqaal. ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee barnaamijka shaqo qaran Maxamed Xuseen Maxamed Muadin isagoo madashaasi ka jeediyay hadallo dhinacyo badan taabanaya. wasaaradda waxbarashada waxaa ka hawlgeli doona 713 dhalinyarada ka mid ah oo hablo iyo wiilal isugu jira. wasaaradda caafimaadka waxaa ka hawlgeli doona 313 wiilal iyo gabdho leh. wasaaradda shaqagelinta waxaa ka hawlgeli doona 29 dhalinyaro ah. wasaaradda beeraha waxaa ka hawlgeli doona 95 dhalinyarada ka mid ah. wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer guuraaga waxaa ka hawlgeli doona 26 dhalinyaro ah. wasaaradda tamarta waxaa ka hawlgeli doona 11 dhalinyaro ah. wasaaradda cadaaladda waxaa ka hawlgeli doona 15 dhalinyaro ah. wasaaradda xoolaha iyo kalluumaysiga waxaa ka hawlgeli doona oo ah 52 dhalinyaro ah. wasaaradda arrimaha gudaha waxaa ka hawlgeli doona 30 dhalinyaro ah. ciidanka badda waxaanu khaas u siinay 10 dhalinyaro ah. in dhalinyaro tiradoodu gaarayso 120 oo 103 wiilal yihiin 17 habla yihiin. madaxweyne muddada ay joogeen say macallimiintu report noogu soo gudbinayeen aad bay u anshax wanaagsanaayeen, wax dhibaato lagama soo sheegin. intaan arkayna aad bay wanaagsanaayeen nidaamkooda, akhlaaqadooda iyo xira joogooguba. wax lagu farxo waa rag mutacalimiin ah. cilmigu ninka doqonkana nin buu ka dhigaa, ninka raggaana 2 nin buu ka dhigaa. barashada wadaniyadda waxay daawo rasmi ah ka tahay runtii qabyaaladda kooxaysiga
waayo qiimaha ama fahanka qaranimada iyo qaranka waxaa la helayaa marka la helo muwaadin si fog u dhugsan macnaha wadaniyadda cidda qura fahanka ku kaliyeysatay ama nationalismka si rasmi ah u fahamsan waxa weeyaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana garan kara runtii qof la dhaqmay waxaan qabaa barnaamijkan inuu yahay barnaamij nasiinayo marxalad laga gudbayna ka dhigayo runtii madax dhaqameedka maadaama uu furmay tartankii aqoontu waa barnaamij suura geliyay in aqooyahanka iyo dhalinyartu fikir iyo maskax ahaanba ka qayb qaataan talada isbedel dalka gabagabadii waxaa hadalka qaatay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi isagoo ku dheeraaday ahmiyadda uu leeyahay barnaamijka shaqo qaran waxaan cod dheer cid walba ugu sheegaya inay shaqo qaran maanta u dareereen iyagoo guutooyin xoog la ah sida ay dalkooda hore ugu marin lahaayeen ay mutadawacnimo ugu shaqayn lahaayeen gobolada oo dhan cadawguraha ka noxo Soomaaliland ku farxo shaqo qaran waxaa ka rabaa inay horseedaan midnimada qaranka iyo hirgelinta horumarkiisa dhalinyarada shaqo qaran iyo kuwa kale waxaan sheegaya haddii aabayaashiin iyo awaashiin dalka xoreeyeen markii hore isticmaalkii ka heliyeen markii dambena dib u xoreeyeen oo ay nabadii keeneen oo ay dowladnimada aasaaska u dhigana ma yagleeleen dhalinyarada imka waxaa la rabaa inay dalka dhisaan oo kor u qaadaan iyagay sugaysaa maxamed ducale cabdi telefishinka RTN Hargeysa halka warkaasi aad kala socotaan akhyaartayna daawanaysa waa telefishinka RTN stuudiyaha dhexe ee magaalada Nairobi akhbaaraadka kale ee caalamka oo aan idin haynana waxaa kamid ah iyadoo maalmihii ugu dambeysay xiisada u dhaxaysa dalalka Iran iyo Mareykanku ay cirka isku sii shareereysay ayaa haddana dawladda Ciraaq waxay sheegteen iminka ay u diyaarsan tahay in labada dhinac ay u kala dab qaado si xiisada labada dhinac u dhaxaysa ay u noqoto mid meesha ka baxda wasiirka wasaaradda amuraha dibadda ee dalka Ciraaq Maxamed Cali Al-Hakim ayaa waxa uu sheegay in dawladdiisu ay u diyaarsan tahay inay u kala dab qaado dhinacyada dawladaha Iran iyo sidoo kale dalka Mareykanka hadalkan ayaa waxa uu sheegay kadib markii si wada jir ah shir saxaafadeed ee maanta magaalada Baghdad ay ugu qabteen dhigiisa wadanka Iran Maxamed Jawad Zarif oo isaga booqasho ku gaaray magaalada Baghdad isla markaana ay ka wada hadleen sidii labada dhinac ay isku garab istaagi lahaayeen Maxamed Cali Al-Hakim wasiirka amuraha dibadda ee wadanka Ciraaq ayaa waxa uu sheegay in godoominta iyo cunaqabataynta Washington ay Dahraan ku soo rogtay uu arko mid aan wax faa'iido soo kordhinayn laakiin Maxamed Jawad Zarif oo isaga shirkaasi jaraa'id ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in dawladdiisu aanay gacmaha is saaran doonin haddii lagu soo xadgudbo isla markaana ay sii wadi doonto tayeynta bacriminta hubka nuclearka oo si weyn caalamka qalqal uga muujinayo Zarif ayaa waxa uu ku fasiray talaabada 1500 oo askari ee dheeraadka Washington ay ugu soo diraysa gacanka Persia inay tahay mid aan wanaagsanayn isla markaana nabadgelyada adduunka qatar kuwa sida uu hadalka u dhigay dawladda Mareykanka ayaa horey waxay u sheegtay in 1500 oo askari oo dheeraad ay u diraysa gacanka Hormuz ee Persia iyadoo taasina Iran ay si weyn uga hortimi waxaana ilaalada kacaanka ee Iran dawladda Mareykanku ay horey ugu eedeysay in doomihii shidaalka ee dhawaan la weeraray dalka Ciraaq ay ka dambeeyeen iyada laakiin arrinta labada dhinac ayaa maalmihii ugu dambeysay si xoogeysanaysa waxaana dawladda Iran ay sheegtay in gabi ahaanba ay laalayso heshiiskii sanadkii 2015 la gaaray ee dhinaca nuclearka oo ay la galeen wadamada reer galbeedka qaarkood oo Mareykanku ka mid ahaa dhinaca kale warbaahinta ay leedahay Xuutiyiinta ayaa waxay baahiyeen in mar kale diyaaradaha aan cidin wadin ee Thronka ay ku weerareen dawladda Sacuudiga garoon ay leedahay oo ku yaala gudaha wadankaasi idaacadda Al-Masira ayaa waxay sheegtay in arrimahaasi looga gol leeyahay in Xuutiyiinta iska caabin ay sameeyaan warbaahinta Al-Masira oo TV ku hadla afka Xuutiyiinta ayaa sheegay in weerarkii loo adeegsaday diyaaradaha droonka ay bartilmaameedkoodu ahaa diyaaradaha dagaalka ee Sacuudiga ee fadhiya garoonka diyaaradaha ee gobolka Najran weerarkan ayaa noqonaya kii afraad oo Xuutiyiintu ay ku qaadeen garoonka Najran toddobaad gudihiis isla bishan gudaheeda Xuutiyiinta ayaa waxay 7 droon oo hubeysan ay ku qaadeen xarumaha shidaalka ee Sacuudiga waxaana ay sheegeen in tani ay jawaab u tahay
duqeynta aan kala joogsiga lahayn ee Sacuudiyiintu ka wadaan gudaha wadanka Yemen. weeraradan ayaa ugu dambeyn kusoo beegmaya xilli ay xiisad ka dhaxaloosan tahay Mareykanka iyo Iiraan. Mareykanka ayaa ciidamo tiro badan iyo maraakiib dagaal u daadgureeyay wadamada Khaliijka isagoo sheegay inuu difaacayo qataro aan la carabaabin halka ay ka imaanayaan. akhyaarteena la socota ee horarkaasi ayaa ugu dambeeyay guud ahaanba warkii dunida, laakiin intaan ka bixin aan dib idin xasuusiyo qodobadii caalamka wararka aynu ka helayna iminka ugu waaweyn. bulshada Soomaaliyeed ayaa si weyn ugu falcelinaysa qariirad u muuqata qaaradda Afrika oo lagu faafiyay bogga wasaaradda amuraha dibadda Ethiopia oo ay ka dhex muuqanayso Soomaaliya oo lagu daray Ethiopia iyo Somaliland oo la muujiyay sidii jamhuuriyad madax bannaan. qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ayaa si weyn uga hor yimi hadal ka soo baxay wasaaradda amuraha gudaha iyo federaalka dalka, taasi oo looga hadlayay habraaca doorashooyinka maamul goboleedyada iyo sidoo kale dan dowladda dhexe ee Soomaaliya. dowladda Ciraaqna waxa ay sheegtay inay u diyaarsan tahay inay door dhexdhexaadina ka qaadato ismariwaaga siyaasadeed iyo khilaafaadka dhinaca diblomaasiyadda ee soo kala dhaxgalay jamhuuriyadaha Iiraan iyo sidoo kale Mareykanka. ageerteena daawanaysa ee warkaasi ayaa qodobadaasi ayaa ugu dambeeyay guud ahaanba warkii dunida oo aad ka daawanayseen telefishinka RTN stuudiyaha dhexe ee magaalada Nairobi. waxaa xilligan idin waramaya anigoo Cabdilcasiis Barrowa. cidda wararka iyagoo ay dhaafaan waxay dib uga heli karaan bogagga aynu ku leenahay baraha arrimaha bulshada sida Facebook iyo sidoo kale YouTube-ka. tan iyo kulantii dambe warkan warka xiga intaan isku arki doonay inaga iyo guud ahaanba bahda wararka ee telefishinka RTN ee xarunta dhexe isku duuban waxaanu idin leenahay isma dhaafno. Ramadaan wanaagsan.